garsoorayaal 40 ah ama ayaan dhihin 40 garsoore kaliya kaaliyaal konton ay ku jireen 90 qof lagu shaqaaleysiiyey oo ahaa process fair ah oo loo eegayo dadka Soomaaliyeed in ay tahay meeshan meel dhakhtar ah oo dad lagu cilaajinayo qofkii mudnaana uu yimaado si uu cilaajkaas qayb uga noqdo. waxaan aaminsanahay in processkaas intii nasiibka u yeelatay ay maanta tababarkooda aan joogno. gudoomiye baarina hadalku yiri waxaan filayaa inuu si fiican u wada maqasheen oo sidii cadaaladda lagu sameeyay inaad jidka ku timid laga shaqeeyo in qodxaha lagaga qaado baadna waxa laga sugayaa bari marka tababarada qaadatid oo xeeraaliye buuxa noqotid in aad ugu shaqeysid bulshada Soomaaliyeed. taliyaha booliiska oo halka maanta fadhiyana wuxuu ka marag furay inuu isbedel ku yimid garsoorayaashii cusbaa oo la soo howlgeliyay wax weyn ay ka bedeleen shaqadii iyo hufnaantii shaqada garsoorka. waxaan rajaynaynaa xeerayaasha cusubna inay sidoo kaleeto ay wax weyn ka bedelaan shaqada qaabka u dhaceyso iyo howlgudashada xafiiska oo runtii wax badan aan cabashooyin badan ay ka jirtay oo la xiriirsan dadkoo yar kaysas tiro badan iyo dadkoo numberkoo dadkoo yar. marka ma dhahayo numberka hadda aan qaadanay waa ku filan yahay maxaa yeelay galalka imaanaya ee shaqada taalo way tiro badan tahay oo 3 darajo oo maxkamadaha dad ka shaqeynaya way xeraalintu la shaqeynayaan oo midkiiba u yartahay waa numberka jooga kara waa dareemi kartaa. booliiska aragtay oo baarisa aragtay sameynayana way la shaqeynayaan marka numberkuna waa inuu u dhigmaayo intaas yahay. laakiin maadaama marba tallaabo la qaadayo wadankan lagu hagaajinayo tallaabadii hadda waxay successful ku noqotay in 20ka xeraale la howlgeliyo waxaan rajaynayaa inay wax ka bedelaan. waxaan rabaa arinta labaad oo muhiimka aan xeraalayaasha cusub u sheegay waxa weeye processka ku soo marteen waa idin sheegay. arinta labaad oo muhiimka waxa weeye tababarka maanta idin furayo waa tababar objective ah oo si waqti dheerna la geliyay khubarana ay diyaariyeen dadkii ugu mudnaayo tababarka bixin lahaa ay ka soo shaqeeyaan sida hore loo sharxay gudoomiye baare uu sharxay garsoorku hadda macadka tababarku leeyahay garsoorayaal tababaran oo waxaan ku soo tababartay baa jira xeerayaal tababaran baa jira dad aad u tababaran oo traininada booliiska kamid ah jira. marka inta contentiska iyo wuxuu ka kooban yahay tababarkaas si objective loogu soo shaqeeyay. waxaan rajaynayaa in inta aad ku guda jirtaan ayadoo aan ogahay qof kastoo xeeraale ku xigeen hadda halkaan meeshaan fadhiyo inuu khibrad iyo aqoon iyo xirfad uu leeyahay skill uu faaruq uusan ahayn laakiin skill ku jiro inta qiimeynteena nooga soo baxday. waxaan rabnaa inay haddana dhankii practicalkii maadaama qofkii uusan xeraalinimo ku shaqeynin muddada 9 usbuuca waxaa ugu talagalnay inuu qofkii ka haqotirno shaqada dhacaysa iyo qaabka u dhacayso isagoo dharagsan oo cufan oo fahansan shaqada ee dhacaysa wax mas'uuliyaadka laga rabo inuu aan soo howlgelino ka bacdina si hufan ay u bedelaan change-ga hore maxkamadaha ugu dhacay xafiiska xeraalinta la filay inuu ka dhaco. marka waxaan rabaa muddada 9 usbuuc oo tababarka socdo macallimiintii mudnaa waa la keenayaa sidii ugu mudnaa waa tababarka loo qabanqaabiyay mas'uuliyad tiro badan guddi baa ka shaqeynaya tababarkan macadkii tababarka garsoor gudoonkiisa baa ka shaqeynaya. waxaan rabaa inay classeska la qaadanayo inay noqdaan kuwo isku dhex jiro aan ahayn kaliya baa ka shaqeynay 10 theory la bixinayo. marka waxaan rabnaa inay qof kastoo kamid ah uu faa'iideysto time-kana la ilaaliyo qof kastana uu active noqdo. marka u dambeysoo la qiimeynayana waxaa lagu qiimeynayaa qof kasta tababarka uu qaatay wax uu ka faa'iiday si uu uga qaatay soo active ku ahaa. evaluation reportka waxay ku xirnaan doontaa hadhow markii tababarka kugu dhamaado in active laga dhigo markaba galalkii hore lagaaga dhiibo ina hore lagaaga dhiibin waxay ku xirnaanaysaa evaluationkii assessmentiga lagu sameeyo. marka waxaan rajaynaynaa inaad si fiican uga faa'iideystaan. waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo qof kasta oo ka soo qayb qaatay maanta meeshaan joogno in la soo gaaro oo la xiriirsan shaqaaleysiintii xeeraalayaashan cusub hadda iyo tababarkan hagaajintiisii iyo ka shaqeyntiisii tababarka
iyo macallimiinta ahead aanba usii mahadceliyo macallimiinta jadwalka naga aqbalay inay qayb ka noqdaan oo jenaraal axmed cali abuukar nagala fadhiya hadda iyo xeeraale farxaan iyo agaasimaha rag badan hadda halkan fadhiyaan waxaan u rajaynaynaa in ayagana